inaad qof kala hartaan ama kala tagtaan waa wax fudud, balse marnaba ma sahlana inaad qalbigaada ka jarto. quruxdu ma aho kaliya tan isha qabato, waxaa jira boqolaal dareen oo isha ka qoto dheer. xiriir kasta kuma dhisno dareen ee waxaa buuxa kumanaan daran kaarka leh. aarsigu waa dhaqanka ugu xun ee niyadaada ku fakirto. haddii aad caado ka dhigato waxaa lumaya jiritaankaada. qof kasta kuma qancayo qiimahaaga, adigase u quur dadka qaayahooda. tixgeli aragtida qofka kale, hana ka tegin taada. wax u jeclow si dhammaystiran. tani micnaheedu ma aha inaad wali wax u jeclaato, ee waa inaad daacad u ahaataa dareenkaada. ula dhaqan dadka si dhexe oo midkiin dhib u keenaynin. ha isku dhiibin naftaada, iska badaaya naf kale. maxaa yeelay isdhuldhigiddu waa qashka oo qofku ku samayn karo wax uu doono. qaladkaaga dib u sax, oo ha sugin in mar walba lagaa waaniyo waxay shalumin qofna farxaddiisa adigoo awoodo inaad u abuurto. marnaba ha sugin dadka si saxa inay ku wada fahmaan, ee ku dadaal inaad isfahantaan. yeelo dhaqan lagugu jeclaado ama lagugu xiiso haba yaraadee. ma rabtaa inaad mar kasta farxad dareento? haddaba weligaa cidna caloosha waxba ha ugu qaadin. yeelo qorshe iyo go'aan ku madax bannaan si aad u xalliso dhibkaaga. dhagaha ka furayso dhaliilaha aan wax dhisayn. aqoonta waa midda wax dhista ee ma aha midda wax dumisa. يا حالات البنت لما